kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka SBS xaruntiisa dhexe magaalada Muqdisho. qodobada warkaad ku daawan doontaan hadduu raalli ka noqdo daawadayaal waxaa kamid ah wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya oo uga mahad celiyay bangiga adduunka iyo IMF sida ugala shaqeeyeen shuruudaha deyn cafinta Soomaaliya. dowladda Mareykanka waxay iraada ka qaaday shirkadda isgaarsiinta ee Barakada. magaalada Muqdisho waxaa loogu soo gabagabeeyay in ka badan 40 dhalinyaro ah tababar la xiriirta barashada kalluumaysiga. akhbaraadka dibadda daawadayaal waxaa kamid ah Sacuudiga oo beeneeyay in ay wada kulmayaan dhaxal sugaha dalkaasi iyo waliba ra'iisul wasaaraha Israa'iil. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan hadduu raalli ka noqdo daawadayaal. wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa uga mahad celiyay bangiga adduunka iyo hay'adda IMF sida ugala shaqeeyeen shuruudaha deyn cafinta Soomaaliya. warkan hanoo dhameystiray wariyaheena Muniir Muuse Kaskey. qaybood ayaa lacag inagu leh. Soomaaliya waxa ay si rasmi ah u buuxisay shuruudihii deyn cafinta ee loogu baahnaa dowladda Soomaaliya. haddaba wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa soo dhaweeyay go'aankii ka soo baxay bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano IMF-ta ay ku aadanaa in Soomaaliya ay mudan tahay in laga cafiyo deymaha faraha badan ee lagu leeyahay. waxaana uu dhinaca kale wasiir Bayle ugu mahad celiyay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka dadaaladii ay ku bixiyeen suurtagalnimada arrimaha ku dahaaran deyn cafinta dowladda Soomaaliya. Soomaalida kule saddexda qaybood oo loo kala qaado baananka adduunyada World Bank ka mid yahay, IMF ka mid tahay, African Development ka mid yahay. saddexdaasi waa hormood weyn. iyaga runtii ka hormooda iyagaana dariiqa deyn cafista sameeyay 96 marka laga soo bilaabo deyn cafista sameeyay. gruubkaasi waa gruubka kale waxa weeye qolada Paris ku bahowday, Paris Club la yiraahdo, iyo qolo kale oo saddexaad oo la yiraahdo non Paris Club. labada kale waxay sugayaan saddexda institution waxay qabtaan ay sugayaan waa inay iyagu yiraahdaan Soomaaliya arintay waday waa ku qanacnay waa inay yiraahdaan. marka kuwa kale way daba socdaan. marka labadoodu shirar badan ba kan waxa kii ugu horeeyay labadoodu shiraan waxa ku xiga African Development Bank Africa horumarinta Africa oo isaguna dhawaan shiri doona baa ku xiga. waxa kale oo ku xigi doona mar haddii IMF iyo World Bank soo saareen malahoodu waxa uu yahay qaraarkoodu wuxuu yahay inay Soomaaliya deyn cafintii meeshii looga baahna marayaan ay mutaysteen in deynta laga daayo. xarafkaas hoosta laga xariiqaya. Soomaaliya waxay mutaysatay deyntii baa laga dhaafay wali ma waxay mutaysatay wixii looga baahnaa oo dhan ay fulisay in deynta laga cafiyo. taas horta shirarka yihiin. shirka ku xiga marka waxa weeye 12 13 way xaqiijiyeen inaan eligible u nahay amaan mutaysanay. waxa ku xigaya marka waxa weeyaan in baan waliba goonidiisa u shiro oo deyn cafintiisii galo ayaa ku xigaya. World Bank waxa weeyaan 27ka bishan ku jirno maalinta Washington maan tagaynaa hadii la yiraahdo waxaan la soo seexanaynaa deyn cafinta la seexanaynaa. African Development Bank horumarinta Africa isla 26ka maalin buu ka horeeya. waa saddexdoodu way isdaba socdaan. IMF tuna in yar buu ka dambeynaya laan IMF to arrimaha sidee wax ku cafiso ya ka adag sidee wax ku cafisaa tan kale ka adag. yani macni waxa weeye lacagtii la inagu lahaa in meel laga soo ururiyo way dabeetana lacagtiisa lagu bixiyo. marka iyagu waxa shiri doonaan in kastoo ay shalay gaadheen in deyn cafintii ay diyaar loo yahay haddana iyagu waxa shiri doonaan bish soo socota March ay shiri doonaan. marka decision point ku wuxuu noqonayaa markay saddexdooduba shiraan ay saddexdooduba isku dhameystir ka ugu dambeeya shiro ayaa la oranayaa waxa weeye decision point. macnaheedu yahay waxa laga shiray qaraarna la gaaray in deynta la cafiyo. xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre ayaa isku hawshay sidii Soomaaliya looga cafin lahaa
deymo badan oo loogu leeyahay waxaana wadamada deymaha ku leh Soomaaliya ay hordhigeen shuruudo adag oo caqabadahooda watay. Muniir Muuse Bujeeti, Muniir Kaskey, SBS, Muqdisho. magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay tababar loo qabtay in ka badan 40 dhalinyaro ah kuwaasoo ka kala yimid gobolada dalka lana barayay cilmiga kalluumaysiga. warkan hanoo dhameystiray wariyahena Aadan Macalin Aadamow. dhalinyaro ka socday degmooyinka maamul goboleedyada dalka ka jira iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa Muqdisho loogu qaybiyay doomo yaryar iyo qalabka lagu gaado kalluunka, waxaana qaybinta doomahan iyo qalabkaba ka horeeyay tababar muddo soconayay oo dhalinyarada la siiyay si shaqo abuur loogu sameeyo dhalinyarada shaqo la'aanta ah ee dalka. qaar ka mid ah dhalinyarada la siiyay qalabka ayaa sharaxaya tababarka iyo qalabkii la siiyayba. waxaan ka imid dhankan Baraawe waxa ay hadda isiisay qalab oo iga maqneed aan u baahnahay. alxamdulillah waan u mahad celinayaa sidii hadda wax noo qabatay faaw iyo tababaro iyo seminaariyo oo noo qabtay waxyaabo badan oo naga dhibnaayo oo hadda lagu soo kordhiyay. alxamdulillah ilaahay aan u mahad celinayaa. waxyaabaha la iisii waxaa ka mid ah sida doominkan aa u jeedin iyo qalabkan oo geedaan iyo qalabkiisa isla socdaan aa ka mid ah. alxamdulillah waa qalab aanaka aan u baahneenay. aad iyo aad way mahadsantahay. anigoo ah Cabdullaahi Cali Tuuso kana socdo Hirshabeelle waxa ayna guddoonsiisay maanta qalabka ayna guddoonsiisay Hirshabeelle hay'adda FAO waa ku faraxsanaa. wax badan shalay aniga shaqaale ahay Soomaa maanta in aan shaqada si la muujibara laga yaabaa. wasiirka kalluumaysiga maamulka Koonfur Galbeed Cabdiqani Cabdullaahi Maxamed ayaa dhalinyarada ku dhiirigeliyay inay ka mira dhaliyaan si dhalinyarada la midka ah loogu raadiyo shaqooyin noocan oo kala ah. haddii aad si sax ugu shaqaysataan waxay nagu dhiirigelinayaan annaga iyo FAO-ga in dhalinyarada kale ee isteediyada degan mar labaad ayagana loo raadiyo fursado kale. laakiin haddii aad ka faa'iideysan weysaan oo doomihii aad ku shaqay weysaan ma nagu dhiirigelinayso in mar labaad dhalinyaro kale doomo la siiyo. kooxo horaa jiray oo ka faa'iideystay doomahaas kuna shaqaystay guulo la taaba karana ka sameeyey. haddana maanta ayaga muxuu ahaa deeq-bixiyaal ah oo shalayna muxuu ahaa beneficiary ahaa maantana waa deeq-bixiyaal oo ayaga muxuu ahaa shaqaalo samaystay iskaashatooyin samaysteen. guddoonsiinta qalabkan kalluumaysi iyo tababarka loo sameeyay dhalinyaradan ayaa imaanaya xilli dawladda Soomaaliya ay mas'uuliyad gaar ah iska saartay sidii muwaadiniinta Soomaaliyeed ay uga faa'iideysan lahaayeen kheyraadka dabiiciga ah ee ku jira dalkooda iyadoo lagala dagaalamayo maraakiibta sharci darrada ah ee jariifka ka waday xeebaha Soomaaliya. Aadan Macalin Aadaamo, TV-ga SBS, Muqdisho. muqdisho waxaa jira kooxyo maslaxyada looga yeero kuwaasi oo loo soo kireysto in ay ku soo bandhigaan ciyaaraha hidiya dhaqanka dalkeena. sheekadaasi soo socota waxa ay noo dhameystirayay wariyahena Shaasha. waxaa looga yeeray masraxa munaasabad milga leh oo ka mid ah kuwii Muqdisho ka dhacay. waa koox ka mid ah kooxaha ka jira Muqdisho ee ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Soomaalida. caadiyan waxaa loo kiraysaa inay ka ciyaaraan xafladaha arooska, meherka iyo kuwa ay madaxda isugu yimaadaan. waana koox marka ay masraxa fuulaan mid kasta oo daawanaya ka dhiga maqsuud. mid kasta oo ka mid ah iyaga ciyaartiisa waxaa la socota xirfado kale oo soo jiidasho leh. kanina kooxda ayuu ka mid yahay waxaana uu ciyaarayaa isaga oo mid ka mid ah lugihiisa ay dul saaran tahay qoortiisa.
ciyaartan waxaa loo yaqaan maanafay waana mid ka mid a ciyaaraha dhaqanka ee dalkeenna muwaadiniin Soomaaliyeed ayaana masraxyada Muqdisho ku soo bandhiga si masruufka qoysaskooda ay uga maareeyaan cabdishakuur shaasha SBS Muqdisho magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda waxaa lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay shaqaaleysiinta dhalinyarada shaqo la'aanta ee qaaradda Afrika warkan marka la noo dhameystiray wariyahana Munir Kaskay Kampala waxaa ku soo xirmay shir looga hadlayay xal u helidda shaqo la'aanta dhalinyarada waxbartay ee dalalka Afrika kuwooda ku bahoobay wasaaradaha arrimaha shaqada ee dalalka dhaca qaaradda Afrika 19 dal oo kamid ah dalalka dhaca qaaradda Afrika ayaa shirkani ku madalsanaa waxaana looga hadlayay qodobo ay kamid ahaayeen xuquuqda shaqaalaha iyo tababarada shaqo abuur iyo la dagaalanka gaajada haddaba shirkani Soomaaliya waxaa ku matalayay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda Soomaaliya mudane Sadiq Xirsi Warfaa waxaana uu ka warbixinayay ujeedada shirkani iyo doorka ay Soomaaliya ku lahayd waxaan rabaa inaan mahad celiyo shaqaalaha safaaradda oo dalkan ugu horeeya kusimaha safaaradda orda shaqo fiican halkan ka muujiyay kana haya walaal haddaan kaaga waramo shirkan waa shirkii 46aad wadamada la yiraahdo Anglophone ARLAC oo la yiraahdo African Regional Labour Center marka ARLAC waxa weeye waa wadamada English speaking country 19 wadan oo Soomaaliya ka mid tahay ayaa xubin ka ah waxyaabaha ugu waaweyn oo shirkan waa shirkii 46aad oo dhacay weeye Soomaaliya muddo dheer ayay ka maqnayd oo iska qayb gali jireen shirarka noocan oo kale ah laakiin member ayaan ka nahay xubin ayaan ka nahay waliba xubin muhiim ah marka shirkan waana lagu casuumay waxaan looga hadlayaa waxa weeye afar waxyaabood ay ugu waaweyn oo looga hadlayo afarta waxyaabood waxa ugu horeeya shaqada iyo sidii shaqo wax leedahay decent work shaqooyinka wanaagsan oo dadka loogu abuuri lahaa waxa kale laga hadlayaa xuquuqda shaqaalaha waxa kale looga hadlayaa wax leedahay social protection oo ah dadka nugul oo mataqaana ay aad oo nolosha ugu hooseeya faqriga si loo dagaalami lahaa mowduucyadaas ayaa looga hadlayaa wuxuuna ka dhacayaa magaalada Kampala marka runtii shir aad muhiim u ah waaye ilaa iyo hadda 13 wasiir oo dalal kala duwan ayaa yimid iyo wadamada kalena qaar safaaradooda soo dirsadeen annaga Soomaaliya si muuqda ayaan uga qayb galnay oo aniga wasiirka socda iyo wasaaradda xubin kale oo kamid ah marka runtii ahmiyad gaar ah inuu leeyahay sababtoo tahay waxaan rabnaa inaan shaqaalaheena inaan ku tababarano kaas ARLAC waa xarun aad uga caawisa xubnaha ku jira in shaqaalahooda oo ay tababar fiican qaataan si dalka ugu adeegaan Soomaaliya waxa ay xubin muhiim ah ka tahay wadamada 19 ah ee dhaca qaaradda Afrika isla markaasina wasaaradahooda shaqo ay ku bahoobeen midowga wadamada ku hadla Ingiriiska ee qaaradda Afrika Munir Kaskay SBS Muqdisho Suldaan Axmed Rashiid oo kamid ah salaadiinta Hirshabelle ayaa madaxweynaha Hirshabelle ku eedeeyay gudasho la'aan iyo in ay Muqdisho ka dhigteen xarun ay ku nastaan waryaheena Nuur Macalin Maxamed ayaa magaalada Jowhar warkan inooga soo diray Suldaan Axmed Rashiid Sheekh Shucayb oo ah suldaanka beelaha 6 shiidle ayaa ku eedeeyay madaxweynaha ku-xigeenkiisa iyo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle inay gabeen mas'uuliyadii loo igmaday taasi bedelkeedana ay ka dhigteen goob ay iska joogaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka oo haddaba saddexdaba ay ku sugan yihiin waxaana dhinaca kale suldaanka sheegay in ummadda Hirshabelle ay dacwo ka tahay madaxda Hirshabelle dawladda Hirshabelle waxaa noqoteen dhicisaa noqoteen lafta gareen waa niga dambeeyey milkiisa waa dhistay dadkiisa waa habeestay marka haddii gurigiina dhisi wayseen madaxweynaha Maxamed Cabdi Waare
ku-xigeenka cali cabdullaahi xuseen cali guudlaabe minikiisii haddii ka kala ordeen haddii ilaa axad soo geli waayo waa nin laga tashanaa seefta galku ma jirto nin walbow godkay biyaha kugu soo galeen xamar nilama idmani waxaa nila idmadii joor aniga wax badanaan shib idinga idhi shicibkaa i soo dacweeyey marka daabtaan dabacaddaa wareegaayo ninkii dooracad qabow dareegnaaw dabacaddaa arniga soo gali xamar mani laga dooranaayo intaa doorasha ku leedihiin inta iska soo xaadiriya ilaa asniin haddii imaawaysiin hirshabelle waa niga tashanay walaa gudoomiye baarlamaan walaa madaxweyne ku-xigeen imaada minikinii u soo tashta waxa wadiin ummadda u sheega waxa ummadda qanciya xamaraan joogaynay hirshabelle waa salaama waa shalay horyaa idinku duceeyey haddaana waa ducaynaa ducaynaa 2020 danta leedihiin ilaahay sakhiro laakiin cali gudoomiyaha maaragtay baarlamaanka madaxweyne ku-xigeenka dadkii waa idin taween haddii tamar idin qabatine iska soo deeriya hadalka suldaan axmed rashiid sheekh shuceyb ayaa imaanaya xilli muqdisho ay ku sugan yihiin madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka hirshabelle kuwaasi oo dhammaan ka wada muqdisho olole la xiriira sidii ay dib ugu soo laaban lahaayeen iyaga oo heesta boosaskooda sida ay inoo xaqiijiyeen ilaa muhiim ah nuur maxamed macalim SBS TV jowhar weli waxaad daawanaysaan wararka SBS xaruntiisa dhexe ee magaalada muqdisho haatana akhbaaraadka dibadda dowladda sacuudiga ayaa beenaysay wararka sheegaya inay wada kulmayaan dhaxal sugaha dalka sacuudiga iyo ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Sacuudi Arabiya ayaa khamiistii beeniyay warbixin sheegaysa in laga yaabo ay wada kulmaan dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan iyo ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil ma jiraan wax kulamo oo dhaxmaraya oo la qorsheeyay dhaxal sugaha Sacuudi Arabiya iyo ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil waxa sidaasi telefishinka Sacuudiga laga leeyahay u sheegay Amira Faisal warkii aad kala socoteen telefishinka SBS xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho waa naga inta warkan warkiisa xiga ku wada kulmi doono anigu Cabdullaahi Maxamed Sheekh Doono oo idinkaga tagay sida ay nabadgeliyo